weli waxaan ku guda jirnaa cunitaanka khayraadkii beeraha ka goosanay tanna cidi kaamale بسم الله الرحمن الرحيم مركله مال كله إيوه مقال كله حدي أشلي جوجي مقالة حري ما أنت واحد جوجا قبي سيدا أم بلن قاضي واحد سودو بدون برنامج تياله أو أنا قلت لك لي إن اللي وده يقول بالشدة يقول حدا سيدا كله واحد جوابه وجهنا ولا له سؤاله إنك سويدين إيه حري سيدا كله قبينا برنامج كله يعني كسميننا سؤالين إنه كجواب بدونا لسعود ونكسل sida aan horay soo meeshin gareeyay ama aan horay nigu sheegay magaaladu waa magaalo khayraad waa magaalo barwaaqo sidaad ku soo aragtay barnaamijkii hore waxaan ka soo sameynay degmada Shinile gaar ahaan qablihayga xari maantana waxaan joognaa degmada Hadagala dhulbeereedka ama dhulka ugu qurux badan ee Gabi waxaan sameey doonaa socod aan ku soo mari doono dhammaan beeraha ay leedahay Gabi sidoo kale ballanqaadkiina waa ka soo jawaabi doonaa namarsha horeyna waxaan u soo dhaxnay tani waa nimcad aan laga helin goob kale waa nimcad ilaahay ku manaystay deegaankani haddii aad ila soo aragtay fiiga guud ay leedahay magaalada Gabi ama beeraha Gabi kani waa ceelka waraabiya quruxdii aad aragteen iyo bilicdii aad aragteen ceel kamid ah ceelasha waraabiya way badan yihiin ceelasha waraabiya beeraha ku yaala Gabi oo aan si guud gali doono si qurux badan aan u soo bandhigi doono kana waa qaabka loogu talagalay inuu waraabiyo biyahani waxay ku dhacayaan fadhiisimkan فريسكنا وحو قاديا بيه oo qofka sida daagiisi ayuu ka sii qaadanaya kan imika laba daag ayaa iska garab baxaya oo wuxuu tagaya goobihii loogu talagalay dihin baldaawada wuxuu deeqa muuliyo ku galaday baldaawada ruuxii dameer la u damqada xaqiisa dihaha qulqulayo amuutiisa dahabka ayaa dalka qodan kara ku biximaayo hadana deeqo daqiiqa kuwayo dareenka jacaylka dadkiilayneeya laakiin dalku taajir إلهي وحول بوادقي بضبودقي بير بودقي حلو كبدي هو في عبوسية كل جاي شهر بين وقبنا واحد عيد فيها كسبتي ما كل الجين كراني ما كل الجين كراني بريء هذا ما كل الكريسة ولا جاكم بدل كيس واحد كستبع لوسي أنت وحول بدل أدونك هذي وحول كوشوان ولا جاكم دير بس واحد أدوك عنت هذا كوقفصته يا مسكع هذا يا ترى هذا يا قرشاد واحد كوقفصته واحد دير كان أنت هساجر waxaan ka nasiib badanahay dad badan waxaan dhex joogaa beeraha Gabiyeed ee aan hore u sheegi jirnay waan tageynaa iyo ballanqaadkii aan sheegaynay ayaan hadda ka soo baxnay waxaan dhex joogaa hadda waa geeda liin ah dad waxa ugu liitaa ruuxan dareemayn deeqaha la siiyo waxa daaradiisa fursad iyo wanaag dadan ama daa'im ku galaday ee ka dorbido marnaantiyo inuu aad mid dawarsado ama dawlad kala cayd ka dorbido adoonnimo iyo geeda camba weli waxaan ku guda jirnaa cunitaanka khayraadkii beeraha ka goosanay tanna cidi kaamale waa dhulkaagii hooyo kaliya waxaa lagaga baahayay inaad fikirkaaga muruqaaga aad gashatid oo soo baxdid tan oo kale sidoo kale si nimcada hareerahayga taala adigana waa samayn kartaa waxaan si toos u daawanaynaa fiiga guud ee ay leedahay beertan iyo beeraha kale ku hareeraysan
waxaan hore ugu soo tilmaanay inay tahay nimcad ka mid ah nimcadu ilaahay deegaanka ku manaystay isha ku qabo waa ila soco intaa dooni korilayd dabka jiiri lay daran hanfiguna ku dubila magafaha wax dooxiyo midaan diirnaha aqoon dubba kugu curyaaminin ama deeqsan hooyayo aabbaha darxumo qaba dartaa ilinta daadinin doolar soo shub lagu odhan adigoo dalkaaga ku dadaalabaa mudan dalag beertabaa mudan laakiin dalku taajir wey ilaahay wax walba waa dhigay bad buu dhigay beer buu dhigay xooluu ka badiyey hawo fiican buu siiyey kulligeen shaarar baynu qabna waxaad cid tira ka sugtay ma ku dhergin karaane maya ma ku dhergin karo barya aadan ma ku dhergi karaysaa weligaa kuma dhergaysa wax kastaba ha lagu siiyo inta ugu xoolo badan adduunka hadday waxooda kugu shubaan weligeed ku deeqi mayso waxaad adigu gacantaada ku qabsato iyo maskaxdaada iyo taladaada iyo garashadaada waxaad ku qabsato wax ku deeqi kara intaasaa jira oo uu la jiro iimaan iyo kalsooni gacanku markuu dhashay waa shirinay waxaan hor dhegaysta waxaynu caabudnaa waa ilaahay weynaayo waaxid ah wuxuu inoo soo mariyey oo inoogu sheegay dariiqaan raacinayna kitaabkiisa kariimka wuxuu inoogu soo dhiibay rasuulkeennii suubanaa inoogu soo dhiibay kii badgalaa ha galo kii biri galaa beer ha ka doonto kii xoolo haysta ha tabcado ha xanaanaysto horeyna waxaan u soo dhaxnay tani waa nimcad aanan laga helin goob kale waa nimcad ilaahay ku manaystay deegaankani dadka deganna loo baahan yahay inay sideeda ay ula keenaan biyahaas dhul badan way ku yar yihiin ama lagama helo waa biyo la cabi karo sidoo kale lagu beeran karo waxaan ogeysiinaynaa dhallinyarta inagu xidhan inay dhulkooga ay waxgashadaan dhulkooga wakhti geliyaan dhulkooga fikir geliyaan qurbaha kuwa jooga qurbaha waxaad ku tahay marti waa lagaa leeyahay ninka qurbo ku soo noolaa unbaa dareemaya kaad maanta hanti u leedahay kaad daxal u leedahay kay cidina kaa sheegan karayn ee ay tahay inaad dhididkaaga mustaqbalkaaga fikirkaaga intaba aad ku dhistid waa kaa nimcaddaas ayuu leeyahay waxaad maanta dhulkaaga aad gashato ayaa kuu aayi doono qurbaha muruqaaga ayaad maali marka aad daashid 60 jir marka aad noqotid waxaa la soo tuurayaa cajilkaaga si lagugu aaso dhulkani inta aad noo keeni lahayd qurunkaaga iyo lafahaaga aad noo keeni lahayd dhulka naga wasakhayn lahaa noo keen muruqaaga maskaxdaada iyo awooddaada si aan iyo maalkaagaba si aan uga intifaacsano ama wax uga soo saarano sidoo kale waxaan jecel lahay inaan samayno shirkad dhallinyar ah isfahansan wax soo saarato annaguna aan u noqono indho garab wehel walaal aan wada noqono haddii aad rajaynaysid inaad ka mid noqotid dhallinyartaas fikirka muruqa maalka maskaxda ka midaysan fadlan fariin soo dir aniguna waan ku soo qaban doonaa waxaan ku tashan doonaa nimcadda halkan kaliya lagama helo goob kasti uu leeyahay gobolka city waxaa laga qodi karayaa ceel biyood sidan oo kale ah waxaana la samaysan karayaa beero kale oo aanan ahayn gabi iyo xariy ayaa la samayn karayaa dhul waxaa jira aad u bannaan dhul waxaa jira lama degaan imika noqday ceelal haddii laga qodo fikir haddii la keeno muruq haddii la keeno intuba sidan oo kale ay noqon doonaan si aan ugu tashanno haddii aad madax tahayna waxaan kaa codsanaynaa inaad noo fududaysid haddii aad maamul haysidna sidoo kale inaad noo fududaysid dhallinyarta waan isku keeni doonaa waxaana ka faa'iidayn doonaa dhul badan oo bannaan oo maanta garawaa keliya uu ka baxo geed kale uu ka bixin waa gay keliya ayaa ka baxa waraabaha ayaa gala dhulkaas ayaan ka faa'iidayn doonaa ceelal ayaan ka qodi doonaa gabida koobaad hadday tan tahay gabida labaad ayaan samayn karaynaa ta saddexaad ayaan samayn karaynaa haddaad xaarey quruxdeeda aad soo aragtay waxaan samayn karnaa xaareyda labaad xaareyda saddexaad xaareyda afraad dhulku uu bannaan yahay biyuhuna waa sidan oo kale ka faa'iidayso dhulkaaga oo ila soo xidhiidh si aan ugu tashanno ama wax u soo saarano asalaamu calaykum horeyna waxaan u soo dhaxnay tani waa nimcad aanan laga helin goob kale waa nimcad ilaahay ku manaystay deegaankani dadka deganna loo baahan yahay inay sideeda ay ula keenaan biyahaas dhul badan way ku yar yihiin ama lagama helo waa biyo la cabi karo sidoo kale lagu beeran karo
waxaan ogeysiinaynaa dhallinyarta inagu xidhan inay dhulkooga ay waxgashadaan dhulkooga waqti geliyaan dhulkooga fikir geliyaan qurbaha kuwa jooga qurbaha waxaad ku tahay marti waa lagaa leeyahay ninka qurba ku soo noolaa unbaa dareemaya kaad maanta hanti u leedahay kaad daxal u leedahay kay cidina kaa sheegan karayn ee ay tahay inaad dhididkaaga mustaqbalkaaga fikirkaaga intaba aad ku dhistid waa kaa nimcaddaas ayuu leeyahay waxaad maanta dhulkaaga aad gashato ayaa kuu aayi doono qurbaha muruqaaga ayaad maali marka aad daashid 60 jir marka aad noqotid waxaa la soo tuurayaa cajilkaaga si lagugu aaso dhulkani inta aad noo keeni lahayd qurunkaaga iyo lafahaaga aad noo keeni lahayd dhulka naga wasakhayn lahaa noo keen muruqaaga maskaxdaada iyo awooddaada si aan iyo maalkaagaba si aan uga intifaacsano ama wax uga soo saarano sidoo kale waxaan jecel lahay inaan samayno shirkad dhallinyar ah isfahansan wax soo saarato annaguna aan u noqono indho garab wehel walaal aan wada noqono haddii aad rajaynaysid inaad ka mid noqotid dhallinyartaas fikirka muruqa maalka maskaxda ka midaysan fadlan fariin ii soo dir aniguna waan ku soo qaban doonaa waxaan ku tashan doonaa nimcadda halkan kaliya lagama helo goob kastii uu leeyahay gobolka city waxaa laga qodi karayaa ceel biyood sidanoo kale ah waxaana la samaysan karayaa beero kale oo aanan ahayn gabi iyo xariy ayaa la samayn karayaa dhul waxaa jira aad u bannaan dhul waxaa jira lama degaan iminka noqday ceelal haddii laga qodo fikir haddii la keeno muruq haddii la keeno intuba sidanoo kale ay noqon doonaan si aan ugu tashanno haddii aad madax tahayna waxaan kaa codsanaynaa inaad noo fududaysid haddii aad maamul haysidna sidoo kale inaad noo fududaysid dhallinyarta waan isku keeni doonaa waxaana ka faa'iidayn doonaa dhul badan oo bannaan oo maanta garawaa keliya uu ka baxo geed kale uu ka bixin waa gay keliya ayaa ka baxa waraabaha ayaa gala dhulkaas ayaan ka faa'iidayn doonaa ceelal ayaan ka qodi doonaa gabida koobaad hadday tan tahay gabida labaad ayaan samayn karaynaa ta saddexaad ayaan samayn karaynaa haddaad xaarey quruxdeeda aad soo aragtay waxaan samayn karnaa xaareyda labaad xaareyda saddexaad xaareyda afraad dhulku uu bannaan yahay biyuhuna waa sidan oo kale ka faa'iidayso dhulkaaga oo ila soo xidhiidh si aan ugu tashanno ama wax u soo saarano asalaamu calaykum